بسم الله الرحمن الرحيم. تاريخ ذا سلطنة مقدشو قيبتا أفر waxaan ka soo hadalnay waxyaabihii ay ka qoreen dhulmareennadii booqday magaalada muqdisho wakhtiyo kala gedisan. dhulmareennadaas oo uu ka mid ahaa ibnu batuuta, yaaquut alxamaawi, duwaarta barbosa iyo vasco da gama. walow vasco da gama aanu ku soo degin magaalada oo uu ka ekaaday badda, waxaan ka hadli doonnaa sababaha keenay inuu badda ku ekaado ee uusan soo degin magaalada. abu cabdalla moxamed ibnu cabdalla atanji oo loo yaqaano ibnu batuuta waxa uu noolaa sanadkii 1304 ilaa 1368. wuxuu ahaa dhulmareen u dhashay dalka morocco. waxa uu safarro ku kala bixiyey dhul aad u ballaaran. meelaha uu booqdayna waxaa ka mid ahaa marka laga bilaabo waqooyiga afrika, bariga dhexe iyo kan fogba, geeska afrika, dhulka bariga yurub iyo bartamihiisa, iyo koonfur bari aasiya ilaa iyo shiinaha. safarada oo qaatay muddo aad u dheer oo gaaraysa ilaa iyo 28 sano. sidaan hore usoo sheegnay, muqdisho waxay ka mid ahayd meelaha uu booqday dhulmareenka ibnu batuuta. welibana si aad u faahfaahsan ayuu uga warbixiyey. waxa uuna naga siiyey sawir caddaynaya sida ay saldanadda u gaartay horumar dhan kasta ah, hadday noqoto dhanka dhaqaalaha, dhanka ganacsiga, maamulka iyo arrimaha bulshada intaba. iyo weliba waxa uu noo soo tabiyey hab nololeedkii sare ee ay haysteen dadka ku noolaa harka saldanadda taariikhiga ahayd. imaatinkiisii muqdisho wuxuuna ku bilaabay in uu kaga soo safray magaalada cadan ee dalka yeman dhanka badda muddo 4 maalmood ah. wuxuuna yidhi, waxaan soo gaarnay magaalada zaylac. waana magaalo ay leeyihiin dad barbar ah oo uu u jeedo dad midabkoodu madow yahay. waxa ayna ka tirsanaayeen daa'ifada suudaanta, waa sida uu u haystay. madhabtoodu waa shaaficiyada. dhulkoodu waa lama degaan inta lagu socdo 2 bilood. wuxuuna ka bilowdaa magaalada zaylac, waxa uuna ku dhammaadaa magaalada muqdisho. xoolaha ay dhaqdaan waa geela. waxa kale oo ay dhaqdaan ari ku caanbaxay buurbuurnida. waxa kale oo uu wariyey in reer zaylac badankoodu ay ahaayeen raafido ama shiico. waxa kale oo uu yidhi, waa magaalo aad u weyn, lehna suuq weyn. waxa uuse ka dayriyey nadaafadda magaalada, taas oo ku kaliftay, sida uu sheegay, inay habeenkii u hoydaan badda oo uu u jeedo doontooda. waxaa u sabab ahaa nadaafad darrada, sida uu ku sheegay buuggiisa bogga 178 in ay ahayd geela oo lagu qalo waddooyinka magaalada dhexdeeda ah. wuxuu kaluu sheegay in ay badda ku safreen muddo 15 maalmood ah. kadibna waxay yimaadeen magaalada muqdisho. isaga oo sii wata buuggiisa waxa uu yidhi, muqdisho waa magaalo aad u weyn. dadka deggan waxay leeyihiin geel fara badan. magaalada waxaa lagu qalaa ama lagu gowracaa maalin walba 200 oo neef oo geel ah. waxa kale oo ay leeyihiin ari fara badan. dadka magaalada deggan waa ganacsato haysata ganacsi xoog leh. waxaa magaalada lagu sameeyaa dhar tayo leh oo loo yaqaano toob banaadir. haddase soomaalidu waxay u taqaanaa alindi. qariidadan oo loo yaqaano qariidada dharka africa, fabric map of africa, waxay tusinaysaa ka sokow africa in soomaalidu ay lahayd farsamo dhar samayn oo heer sare ah. sida uu xusay ibnu batuuta, dharka oo asalkiisu ahaa mid lagu samayn jiray banaadir, saldanadii muqdishona ay u dhoofin jirtay dunida inteeda kale. waxaana loo dhoofiyaa masar iyo suuriya iyo meelo kale oo dunida ka mid ah. dharka oo ku caanbaxay taya wanaagga,
dunida dhulyo fogfogna laga yaqaano. taas waxay caddaynaysaa in farsamada dharsamaynta ay heer sare ka gaartay saldanadda muqdisho. magaca banaadir waxa uu ka yimid kelimadda bandar oo micnaheedu yahay dekad afka Faarsiga. dhulmareen ibnu batuuta marka uu booqday saldanadda muqdisho waxay maraysay waqtigii ay saldanadda joogtay heerkii ugu sarreeyey. sanadkuna wuxuu ahaa 1331. muqdisho waxay ahayd magaalada ugu muhiimsan bariga Afrika guud ahaan. waqtiyadaas magaaladu waxay noqotay mid aad u fiday oo ay dad fara badani degan yihiin. sida uu dhulmareenku soo xusay in 200 oo neef lagu qali jiray magaalada waxay tusinaysaa baaxadda magaalada. waxa uu ka sheekeeyey ibnu batuuta habkii ganacsiga iyo xeerarka u dhexeeyey ee kala hagi jiray dadka reer muqdisho iyo ganacsatada shisheeye ee safarada ganacsi ku yimaada magaalada, kaas oo ahaa mid aad howlgal u ah, iyo xeerarka kale ee kala haga howlaha ganacsiga iyo ganacsatada oo dhan ah iyo maamulka saldanada oo dhan ah. xeerarkaa waxaa ku caddaa sida loo wajaho xaalad kasta oo qusaysa habka ganacsiga. isaga oo halkaas ka sii wadaa waxa uu yiri: marka markab ku soo xirto dekedda waxaa ku baxa xayn doonyo yaryar ah ama huuriyo. doon kastaa waxaa saaran koox dhallinyaro ah oo dadka magaalada degan ah. mid kasta oo iyaga ka mid ahna waxa uu wadaa saxan daboolan oo ay ku jirto cunto. markay markabka soo fuulaan, mid waliba saxankii uu waday ayuu siiyaa mid ka mid ah ganacsatada markabka saaran, wuxuuna dhahaa, ninkan aniguu marti ii yahay. mid kasta oo iyaga ka mid ahna sidaas ayuu yeelaa. ganacsade kasta wuxuu ku degaa guriga ninka uu martida u yahay, marka laga reebo ganacsadihii magaalada ku soo noqnoqday oo ku yeeshay dad uu mar kastaa ku dego. isagu halkuu doono ayuu degaa. ku-digidda macnaheedu waxa uu ahaa in wax alla iyo wixii xiriir ganacsi ah ee uu ganacsaduhu sameeyo waxaa gacan ku leh ninka uu ku degay. isagaa mathala ama wakiil u ah ganacsadaha. ma dhici karo xiriir ganacsi ogaansha la-aanta wakiilka ganacsadaha haddiise ganacsadaha uu galo heshiis ganacsi oo uusan la soconin ninka martigeliyey. ganacsiga xeer ahaan waxa uu noqonayaa mid aan ansixin. nidaamka iyo kala dambeynta ganacsiga muqdisho waxa uu ahaa mid aan wax turxaan ah lahayn. taasna waxay ka mid tahay waxyaabaha sababay in uu guulaysto ganacsiga magaalada. mar uu ka warramayey markabkii uu la socday iyo ku soo xirashadiisii muqdisho waxa uu yiri: markay dhallinyaradu soo fuuleen markabkii aan la socday, waxa ii yimid mid ka mid ah iyaga. kolkaa asxaabtaydii aan la socday ayaa waxay ku yidhaahdeen, ninkani waa fiqi ama sheekh. isagiina wuxuu u dhawaaqay saaxiibadii oo uu ku yiri, ninkani wuxuu marti u yahay qaaliga. waxaana la socday mid ka mid ah ragga qaaliga. arrintaana wuu ka war helay. wuxuu iigu yimid xeebta isaga oo ay la socdaan qaar ka mid ah ardayda, wuxuuna igu daray mid ka mid ah ardayda. waxaana u tagnay aniga iyo saaxiibaday qaaliga. waan salaamay. salaan kadibna wuxuu yiri qaaligii, bismillaah, markana waxaan soo salaamaynaa sheekha. waxaan ku idhi, sheekhu waa kuma? wuxuu igu yiri, waa suldaanka. waxaana caado u ahaa reer muqdisho in ay ugu yeeraan suldaankooda sheekh. waxaan ku idhi, haddaan iska dego aniga oo aan sheekha u tegin, bal ka waran. wuxuuna ii sheegay inay caado u tahay hadduu yimaado nin fiqi ah ama shariif ah ama nin suuban, ma degi karo ilaa uu sheekha arko. kadibna waxaan aadnay sheekha. arrintan ah ninkii aan ganacsade ahayn ee yimaada magaalada muqdisho inuu marti u noqdo suldaanka ama sheekha, ka sokow martigelinta iyo weynaynta martida ay muqdisho ku caanbaxday. waxaa kale oo aan dhihi karnaa in looga gon leeyahay in dowladdu la socoto dhaqdhaqaaqa socotada dalka soo gelaysa iyo waxa ay u socdaan. ibnu batuuta oo halkii kasii wada hadalkiisa waxa uu yiri: suldaanka muqdisho sidii aan soo sheegnay waxaa loo yaqaanaa sheekha.
magaciisuna waxa uu ahaa abubakar bin sheekh cumar, waana nin asalkiisu yahay berberiyiinta ama midabkiisu madow yahay. luqadda uu ka hadlaana waa tan muqdisho looga hadlo, wuxuuna ku hadli karayay luqadda carabiga. caadooyinkiisa waxaa ka mid ahaa markab uu ku soo xirto dekedda magaalada, waxa u taga doon uu leeyahay suldaanka, wuxuuna weydiiyaa markabka halka uu ka yimid, cidda leh naaquudaha ama kabtanka markabka, iyo badeecada uu sido, iyo ganacsatada la socota, iyo wixii la mida. marka uu intaa ogaado wuxuu warbixin u gudbiyaa suldaanka. taana waxay tusinaysaa sida saldanadda uga warqabtay ulana socotay dhaqdhaqaaqa ganacsiga iyo ganacsatada. ninkii loo aqoonsado inuu xaq u leeyahay inuu martigeliyo sheekhana wuu martigeliyaa. waxaan la imid guriga suldaanka qaaligii aan hore usoo sheegay oo magaciisu ahaa ibnu burhaan, oo asalkiisu ahaa masri. waxaa noo yimid qaar ka mid ah dhallinyarada, waynana salaameen. qaaligii ayaa ku yidhi, ammaanada gudbiya oo gaarsiiya sheekheenna sharafta leh in ninkan uu ka yimid dhulka xijaas. arrintaa waa loo gudbiyey, waana la gaarsiiyey. kadib way soo laabteen iyaga oo sida weel ay ku jiraan caleemaha tambuulka iyo midhaha fowfalka, oo ah midhaha geed u baxa sida geedka qumbaha. wuxuu isiiyey 10 caleemood iyo xoogaa fowfal ah. qaaligiina intaa oo kale ayuu siiyey. intii ku hadhay weelkana wuxuu siiyey saaxiibaday iyo ardayda intoodii kale. waxa kale oo uu keenay qumqum, oo ah weel dhoob ka samaysan oo sida jalmadda ah, oo ay ku jiraan biyo maa'ul ward. wuuna igu rusheeyey, sidoo kalena qaaligii ayuu ku rusheeyey. wuxuuna nagu yidhi, sharfane shiiqeenna wuxuu amray in la dejiyo guriga ardayda, kaa oo ahaa guri u diyaarsan in lagu martigeliyo ardayda. qaaligii intuu gacanta i qabtay ayaan waxaan aadnay guriga. intaa waxaan ku soo koobaynaa qaybtii 4 ee taariikhda magaalada muqdisho. qaybta 5aadna kala soco isla halkan oo ah channelka rugta hiddaha. درخشنده